Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu idilhaantiin baddaawadayaal ku soo dhowaada barnaamij gaar oo aan kaga sheekeynayno waayo Daalibaan. Ururka Daalibaan ayaa ah urur diimeed iyo urur siyaasadeed. Ereyga Daalibaan ayaa ka soo jeeda luqadda Baashtuuga taasi oo lagaga dhex hadlo dalka Afghanistan. Ereyga Daalibaan ayaa macnihiisu uu noqonayaa arday amaba luqadda Baashtuuga marka loo eego uu noqonayaa arday. Haddaba sababta loogu bixiyay magacan ayaa ah waxay ururka Daalibaan ay qeyb aad u weyn oo taageero ah ay ka helayeen xilligii la aasaasay dadka Baashtuuga ee degan Afghanistan. Waxaa jirtay xilliyadii 1990yadii in ciidamo ka socda dalka amaba midowgii Sofiyeed uu soo galay dalka Afghanistan. Haddaba waxa ay dadkii ama shucuubtii kala duwaneed ee ku noolay dalka Afghanistan ay qeyb muhiim leh ay ka qaateen sidii looga saari lahaa ciidamadaasi Sofiyeedka waddanka Afghanistan. Dadkii reer Afghanistan ayaa waxay u qaxeen wadamada u dhow sida Pakistan, Iran iyo wadamo kale oo Ruushku ka mid yahay. Xero qaxoonti oo ku taala dalka Pakistan ayaa madrasadahooda ku yaalay xeradaasi lagu tababaray arday aad u fara badan. Ardaydaasi oo qeyb weyn ka qaatay halgankii lagaga saarayay ciidamadii Sofiyeedka dalka Afghanistan. Xeradaasi oo ay ku noolaayeen arday badan oo ay ka baran jireen madrasadaha lagu dhigo Quraanka iyo diinta Islaamka. Xilligaas oo ahaa 1980yadii oo uu xerada qaxoontigu ay ku taalay waqooyiga Pakistan. Ururka Daalibaan ayaa qeyb amaba laxaad leh oo taageero ah ka heli jiray bulshada loo yaqaano Baashtuuga ee degan dalka Afghanistan. Sidoo kale ururka Daalibaan ayaa waxa ay taageero aad u weyn leh ka heli jireen ururadii kale ee isku mabda ahaayeen kuwaasoo ay ka mid ahayd ururkii Al-Qaacida iyo ururo kale oo jiray xilligaasi. Ururka Daalibaan ayaa sidoo kale ka heli jiray taageero wadamada Sacuudiga iyo Pakistan. Sidoo kale waxa ay xilliyadii la aasaasayay ay ka heli jirtay taageero mug leh dalka Mareykanka, isagoo Mareykanku xilligaasi ku garab istaagay sidii waddanka Pakistan looga saari lahaa ciidamada Sofiyeedka ee soo galay dalkaasi. Balse markii dambe xaaladdu waxa ay isku rogtay in Mareykanka iyo Daalibaan ay noqdaan cadow soo kala horjeesta oo ay dagaal weyn u dhexeeyo. Sanadadii u dambeeyay ee qarnigii 20aad ilaa qarnigan 21aad ayaa waxaa dagaallo xooggan ay ka dhexeeyeen isbahaysiga uu dalka Mareykanku hogaaminayo iyo isbahaysiyadii kale ee Daalibaan hogaaminaysay oo ay ka mid ahayd ururkii Al-Qaacida iyo Daalibaan.